boqol waxaa wadanka la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo Maxamed Siyaad Barre, kaas oo la baxay dowladii kacaanka. Generaal Maxamed Siyaad Barre waxa uu ahaa madaxweynihii saddexaad ee soo maray dalka Soomaaliya, sidoo kale waxa uu ahaa generaal ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. sidoo kale waxa uu ahaa madaxweynihii ugu muddada dheer ee soo maray wadankeena Soomaaliya. Waxa uu muddada haystay 21 sano laga soo bilaabo 1969 ilaa 1991. Aabbe waxa uu ku dhashay magaalada Garbaharey 6 Oktoobar 1919, halka ay sheegaan taariikhyo kale in uu ku dhashay Baardheere 1915. Jaalle Maxamed Siyaad Barre wuxuu waxbarashadiisa hoose ku soo qaatay Koonfurta Soomaaliya. Kadib markii uu soo dhameeyay dugsigiisa hoose, waxa uu soo wareegay magaalada Muqdisho si uu u qaato dugsigiisa sare. Waxa uu suurtagashay in loo qaato ciidamada ammaanka 1940. Sanadii 1950 markay Qaramada Midoobay la wareegtay maamul gacan ku haynta dhulka Soomaaliya, ayadoo wakiilatay dowladda Talyaaniga, ayaa Aabbe Maxamed Siyaad Barre u helay deeq waxbarasho oo ku saabsan ciidanka inuu tago wadanka Talyaaniga, halkaas oo ku sugnaa 2 sano. Goortii uu ka soo noqday wadanka Talyaaniga, Aabbe Siyaad Barre ayaa noqday ku-xigeenka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ilaa uu sii hayay muddo dheer ee Soomaaliya xornimada ka qaadatay 1960. Tababaro iyo dhoolatusyo militari oo uu la soo qaatay saraakiil sarsare ee ka tirsan Midowga Sofiyeeti ayaa Jaalle Maxamed Siyaad Barre ku beertay inuu ololeeyo nidaamka shuuciga ah ee loo yaqaan Marxism. Sidoo kale waxa uu si adag u aaminsanaa wadaniyadda iyo mideynta shanta Soomaaliyeed. 20 bishii Oktoobar 1969 ayaa dil shirqool loo geystay madaxweynihii madaxweynihii wadankaas Cabdirashiid Cali Sharmaake, taasoo buuq weyn iyo is-afgaran waaga ka dhex dhalisay madaxdii sarsare ee wadanka Soomaaliya cidii xukunka la wareegi lahayd. Maalintii aaskiisii 21 Oktoobar 1969, kooxo hubeysan oo militari ayaa wadanka la wareegay oo uu hogaaminayo Aabbe Maxamed Siyaad Barre, Salaad Geer Keydiye iyo Jaamac Cusmaan Qorsheel. Isla markaaba dowladii kacaanka waxay magac ka dhigeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, waxayna xarig u taxaabeen dhammaan xubnihii ka tirsanaa dowladii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaake. Jaalle Maxamed Siyaad Barre intuu xukunka hayay iyo xisbiga kacaanka ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa uu qaatay magaca Guulwade, kaasoo ka dhigan geesigii soo celiyay bilicda wadanka Soomaaliya. Aabbe Siyaad, Allah u naxariisto, wuxuu soo nooleeyay farta Soomaaliya, taasoo 1972 uu qoray 230 xubno oo ka tirsan iyo 300 askari ayuu u diray miyiga magaalada Soomaaliya si ay u gaarsiiyaan farta Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu nashqadeeyay shaaricyada wuxuu nashqadeeyay laamiyada iyo wadanka, halkaas oo kontaraad weyn kala galay dowladda Talyaaniga iyo Ingiriiska.